galab wanaagsan, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan dhammaan akhyaarta nagala xidhiidha taxaniheenii ahay taariikhdii adduunka soo maray waqtiyadii aan kasoo gudubnay siyaabaha ay u sheegaan iyagu oo ay yidhaahaan golden age ama middle age oo runtii waqtigii ay halkan soo galeen nimanka la idhaaho anglo-saxonska ay ahayd taariikhdu waqtigaa iyada ah oo runtii ay ahayd waqtiyadii ay halkan yimaadeen oo runtii ay ahayd waqtigaasu waqtiyo ay runtii 410 ay ahayd waqtiga ay halkan soo galeen oo waqtigaa ka baxeen halkan qoladii la oran jiray romanka oo qaybtan England ee romanka waqtigaa isaga ay haysteen oo runtii waqtigaa ay laba qaybood meesha ay u qaybsameyd oo ay haysteen nimankii la oran jiray waqtigaa laba qaybood ay kala ahayd qaybtan ahayd qaybta ay Irish degaan iyo qaybta ay Scottish degaan mooyee inteeda kale qaybta England ay romanku haysteen oo waqtigaa iyada ay markaa halkan saa ku deganaayeen oo la idhaaho waxay ay yimaadeen markaa ay 3 qaybood ku yimaadeen nimankii anglo-saxonska ay ahaayeen Saxons iyo Anglo iyo Julie labadaa qaybood ay halkan kusoo galeen waqtigaa isaga ah oo diimahay markaa ay haysteen qoladii halkan ay ahayn dad iska mushrikiina oo cadceedii waxaa caabuda luqadooduna ahayd Brittonic oo luqadda walashka ay ahayd oo luqadda walashku hadlaan ahayd waqtigaa markaa waqtigaa isaga ah oo ay halkan iyagu markaa ay soo degeen oo runtii aan kasoo waranay nimanka inay kala haayeen markay soo galeen 7 boqortooyo ay noqdeen 7 boqortooyo markaa la kala oran jiray loogu yeeri jiray magacyadooda Wessex, Essex, Sussex, Kent iyo Mercia iyo East Anglia iyo Northumbria ay 7 boqortooyo ay noqdeen oo runtii Mercia ay deganaan intan dhexda intan England dhexdeeda bartamaheeda ay deganaayeen niyaaxigan Birmingham ilaa iyo laga gaadhayo Manchester ilaa Sheffield ilaa halkan qaybahan dhexda runtii ay deganaayeen Wessex iyo Essex iyo Essex iyo Kent ay deganaan qaybaha West xagga London iyo niyaaxiga hoose ay deganaayeen Northumbria laga bilaabo ilaa Nottingham ilaa iyo Newcastle talagaliya Northka ay deganaan East Anglia qaybahan East ay deganaan iyaguna ay markaas u qaybsadeen wadanka 3 qola ugu weynaa oo runtii
walow boqortooyooyinkii yaraa la qabsaday oo East-Sagasii ay qabsadeen nimankii West-Sagasku, East Anglia ay qabsadeen Mercia, Kent iyagu ay runtii ay iyaga laftigooga ay qabsadeen nimankii la oran jiray West-Sagasku. qayb kalena waa la yidhaha may qabsadeen, waxay ku biireen Northumbria ku biireen, say doontaba ha ahaatee. marka Mercia oo middle-ka ahaa iyagu waxay ahaayeen niman asal ahaan kasoo jeeda Germany. waqtigaa Jarmalku muu jirin, laakiin meelaha ay kasoo gureen baa Jarmalka ahaa. qoladan kale ee iyaguna West-Sagaskuna waxay Dutch ama Holland ama Netherland. East-Sagaskiga kuwaasuna saas ahayn. Kent waxay ahayn boqortooyo Yuhuuda oo Yuhuud bay iyagu u badnaayeen. Northumberiana Denmark bay ahayn, nimanka Denmark oo nimanka ay Danishkay ahaayeen Northumbria. siyaabahaasi markaa iyagu ay u kala gudbanaayeen oo ay ahaayeen. marka qolooyinkan la yidhaaho qoladan oo markaa saa ay u qaybsameen, isla markaana ay saddexdaas soo hadheen oo Northumbria ay qabsadeen nimankii la oran jiray Vikingku asal ahaan taariikhda way qaldaan oo waxay ku sheegtaa inay ahaayeen Ingiriisku waliba Danish buu ku sheegaa oo taariikhda si kale u dhigay. laakiin markii Scandinavian la joogo, Vikingku wuxuu ku calaamsan yahay ama yihiin niman Norwegian waa Norwegian. iyagu Ingiriisku way yar qaldaan, waxay dhahaan waa Danish bahan, laakiin ma ahayn Norwegian bahan asal ahaan Vikingku. oo waa nimankii America Christopher Columbus ka hortagay bay ahaayeen, laakiin niman aqoon leh ma ahayn. waxay ahayn niman dagaalama sidii nimankii Tataarka ama Mongolianka la oran jiray, dagaalyahanin bay ahaayeen. marka ilaa Northumbria, East Anglia oo markaa ay Mercia qabsadeen iyo qaybo Mercia ka mid ay qabsadeen, way soo socdeen ilaa ay West-Sagaska xitaa laftigiisa qaybo badan ka qabsadeen. marka West-Sagaski markaa uu habarwacday dhammaan wixii Anglo-Saxonska ahaa ama boqortooyooyinkii kale la qabsaday, ay dadkoogii markaa soo gurmadeen, soo galeen qaybtan West-Sagaska, dabeetana ay iska caabin xooga ay sameeyeen oo ay sidaa markaa iskaga saareen qoladeen. markaa laba qaybood, qaybta Northka ilaa iyo meeshan la yidhaaho qaybtan la yidhaaho magaceeda la yidhaaho Nottingham ilaa iyo Newcastle inta laga gaadhay iyaga haystay. East-kana iyaga haystay, East Anglia qaybahan iyaga qabsaday. marka nimanku runtii intaasoo dhan bay haysteen. qoladana qaybahan kale ilaa London ilaa Nayaaxigan Birmingham ilaa iyo inta Westkaasoo dhan bay haysteen West-Sagasku. marka waxay isku soo urureen West-Sagaska markaa ay Merciana ay ku biireen, oo inantii boqorada ahayd ee asal ahaan kasoo jeeday familigan Mercia ay kusoo dartay boqortooyadan West-Sagaska. Mercia kusoo dartay maadaama oo ay ogaatay inaanay caabiyi karin cudud military aan ku caabiyi karin nimanka Vikingka. siyaabahaasa markaa keenay inay noqdaan nimanka la yidhaaho West-Sagasku inay noqdaan gundhiga ama gundhigii England ama gundhigii Anglo-Saxonska ay noqdaan nimankii ugu horeeyey gunta bilaabay. waxaa la yidhaaho England ama British ama Britain waxaa la yidhaaho oo dhan bilaabay iyo gundhigu ahaayeen. siyaabahaasa markaa ay u dhacday arrintaasu. saasayna ahayd runtii boqortooyooyinkii. qaybteena dambe ayaan halkaa kasii anbaqaadinaa. sidaa iyo nooli kulante maca salaama. inta ilaahay mar dambe aan ka kulmi doono
ilaahay ka raali ahaan doono waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.